wafdu uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha ee Somaliland ayaa maanta socdaal shaqo ku soo gaadhay magaalada Boorama waxaana wafdu wasiir ku-xigeenka ku wehelinayay maayirka magaalada Boorama iyo madax ka socotay hay'adda UNICEF waxaana ay si wada jir xadhiga uga jareen xilbiyada ay iska kaashadeen wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha ee Somaliland iyo hay'adda UNICEF ugu horreyn waxa furitaanka xilbiyoodkan ka hadlay iskuduwaha wasaaradda kheyraadka biyaha ee gobolka waxaynu halkan u joognaa inaynu xadhiga ka jarno ceelkii cusbaa ay iska kaashadeen wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha iyo hay'adda UNICEF oo maanta wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha iyo madaxa xafiiska UNICEF wafa ay xadhiga inooga jari doonaan ceelkan haddaan warbixintiisa idin siiyo ceelkani wuxuu qodan yahay 220 mitir ceelkani waxa uu culayskii ka riday shirkadda Shaabo oo culays weyn haystay gudooyinkan dambe oo shirkadda maareeyaha xafiiska Cabdiraxmaan Cabdisalaan Shaqal Jawhar aanu xafiiska fadhii kareynin haddii aan ceelkani ku soo kordhin aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin wasaaradda kheyraadka biyaha iyo hay'adda UNICEF in ceelkan ay loo hirgeliyaan. Please accept my gratitude to UNICEF and the Ministry of Water, Development Water, for the borehole that has been struck here by the collaboration between UNICEF and the Ministry, and which has been handed over to relieve some part of the water shortage problem that almost always faces. We are grateful for you and thank you. I would like to congratulate the leadership of our Dar region, specifically Boroma. This is going to provide water to almost 500,000 people, and this includes internally displaced people that have been displaced due to the current drought. So this service comes at a very, very pertinent time. I would like to request and urge the local government to ensure that the system works and operates fine, because operation and maintenance is key. If we don't maintain and operate this system very well, then its survival will be short. And I want to also say just 3 points that are also very critical for this project. That what we have seen this public-private partnership that is the government is also leading with Shamba, which ensure that it's going to be sustainability. Also the use of solar energy, the whole world is talking about, even if it's not about the cost, about, the climate change. So also that provide a very, very good example. And we've seen also this, the local governance program, where the local government administration taking full leadership, putting also their own resources for services. And with all these factors, these are all the ingredients for success. So thank you so much, and you provide a good model that also others can learn from. ka hadlay maayirka magaalada Boorama mudane Maxamed Axmed Warsame waxaana hadalku uga dambeeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha ee Somaliland mudane Saciid Axmed Jibriil waxaana ay goobta ka sheegeen ceelkan wuxuu waxtar weyn ku soo kordhiyay baahidii biyood ee ka jirtay degmada ummaduna aad bay ugu diirsatay taasina waxa weeyaan iskaashigaasi ay ku timid dawladdu hadaanay u kuurgalin oo dadaal u galin ma timaadeen oo mahadnaqaynaa dawladda Somaliland UNICEF kaalin weyn bay ku leedahay horumarinta degmada Boorama marka waliba la eego dhinacyada baahiyaha ay ka jiraan biyihii Boorama siday ahaan jireen iyo kaalinta ka soo qaadatay kaalinta caafimaadka iyo waxbarashada kaga jirto waxaan uga mahadnaqaynaa inay saaxiib dawlad tahay bulshada reer Boorama anigoo markaa ku hadlaya afkii shacabka reer Boorama iyo golaha deegaankaba waxa la thanks to UNICEF your support. We are very happy to hear from you that your support every time that you were supported our community. Thanks again. mahad dhamaanteed Ilaahay baa iska leh maanta inuu waafajiyay inaan xariga ka jarro ceel dheer oo 220 mitir ah oo ay ka faa'iideysanayso magaalada Boorama bulshada ku nool kaasoo wax ka tari doona biyo yaraanta ka jirta magaalada ceelkaasoo ah jawaab ka timid xukuumadda iyo hay'adaha la shaqeeya UNICEF u horeyso
sida la socotaana saaxiibka ugu weyn ee biyaha ka shaqeeya waddankan waa hay'adda UNICEF dadaalkii wasaaraddu gashay iyo xukuumaddu dhammaanteed waxay keentay in loo dadaalo magaalada oo ay biyihii ka yaraanayso sidoo kale ceelkani wuxuu jawaab u yahay in deegaankan laftiisa ay biyaha ka helaan xoolaha iyo bulshada isagoo magaaladiina waraabinaya haddana culays kale oo biyo la'aaneed oo ka jirtay halkan inuu naga qaado ugu dambeynna maayirka magaalada Boorama oo ay weheliyaan madaxda hay'adda UNICEF ayaa kormeer ku sameeyay mashaariicaha kala duwan ee hay'addu ay ka hirgelisay magaalada Boorama kuwaas oo ay ka mid ahaayeen isbitaalka weyn ee magaalada Boorama shirkadda adeegga biyaha ee Shaabo iyo goobo waxbarasho Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo telefishinka CBA Boorama